madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo war ka soo saaray doorashada dalka Faransiiska ayaa hambali u diray madaxweyne Macron oo mar kale loo doortay madaxweynaha dalkaasi. Farmaajo oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa sheegay in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ku faraxsan yihiin doorashada ka dhacday Faransiiska iyo guusha uu gaaray Macron. sidoo kale Farmaajo ayaa xusay in Soomaaliya ay la shaqeyn doonto madaxweynaha dib loo doortay ee Faransiiska, isagoona guul u rajeeyay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed oo ay ku faraxsan yihiin in madaxweyne Macron dib loo doorto, waxayna u rajeynayaan guul iyo qoraalkiisa ku yiri Farmaajo. Qoraalka madaxweynaha ee lagu hambaliyay Macron ayaa sidoo kale lagu sheegay in wadamada Faransiiska iyo Soomaaliya uu ka dhaxeeyo xiriir wanaagsan, sidoo kale iskaashi soo jireen ah. Faransiiska iyo Soomaaliya waxaa ka dhaxeeya iskaashi soo jireen ah, ayuu sii raaciyay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Doorashada Faransiiska oo shalay loo dareeray wareegii labaad ayaa waxaa mar kale guul ka soo hoyay Macron kadib markii uu ka adkaaday xisbiga midigta fog Marine Le Pen. Macron oo soo jeediyay khudbadiisa guusha kadib markii Le Pen ay qirtay in laga adkaaday ayaa ammaanay shacabka dalkiisa, isagoona bogaadiyay 5 sano ee dheeriga ee loo doortay inuu sii hogaamiyo dalka Faransiiska. Salma Xaaji, muuqaal baahiye SBTV, magaalada Muqdisho.